ha inaloo sheer gareeyo. waa Som Turkish School ee magaalada Muqdisho oo iskool luqadda Turkiga. maanta waxaa la su-aal wixii qabtaan baan rabaa inaan idinkaga jawaabno insha Allah oo ku saabsan luqadda Turkiga. su-aal walba waad idin soo weydiin kartaan. qof alla qofkii su-aal qaba hana soo weydiiyo, waan oga jawaabi doonaa oo ku saabsan luqadda Turkiga. ardayda inta badan waxay soo codsaan in aan live aan usoo galno, kadibna su-aalihii ay qabaan commenti ahaan ha noogu reebaano. su-aal walba aad qabtaa waan kaaga jawaabi doonaa insha Allah. iyo weliba si faahfaahsan ayaan idinkaga jawaabi doonaa. su-aalaha commentiga ha inalagu soo qoro. waa Som Turkish School ee magaalada Muqdisho oo iskool bixi luqadda Turkiga. magaalada Muqdisho haddii aad joogto xaruntan ayaa toos u imaaneysaa, adigoo helay galaas toos loo soo xaadiro. haddii aadan joogin kuwa online ah jiro, idin soo dhaweynayna insha Allah. mar waliba iskoolku waa iskoolkiina. haddii la maqlano waa lagu maqlaa, la ii soo qor insha Allah. fariimahan doonaya inaan ka jawaabo. ambarka tooska ah dadka fariimaha igu soo diraan rabaa inaan ka jawaabo. qofkan wuxuu leeyahay luqadda Turkiga meeqa bil ayaan ku baran karaa? luqadda Turkiga waxaad ku baran kartaa muddo ilaa iyo 6 bilood ah, ayadoo ay ku dhigay macallimiin Soomaali ah. luqaddiina boqolkiiba boqol ku fahansiin doona insha Allah. su-aasha kale oo qoraal ahaan in naloo soo weydiiyey ayadana waxaa ka mid ah, qofkaan joogin Muqdisho siduu ku baran karaa? qofkaan joogin magaalada Muqdisho qaab online ayuu ku qaadan karaa luqadda Turkiga. ardayda hadda live-ka aan ugu jirana comment ahaan ha igu soo qoraan su-aal walba oo ay qabaan, waan oga jawaabi doonaa. su-aasha kale, luqadda Turkiga maxaa kale oo aad bixisaan? marka luqadda Turkiga laga soo tago waxaynu bixinaa fasallo English ah. sidoo kale intoo admissiono ayaa ardayda aan usoo saarnaa. admissionadaas oo admissiono free ah, ardaygan uu ka faa'iideysan karo weliba si fudud. soo dhawaada, commentiyadaan akhrin doona insha Allah. qofkan kale wuxuu soo leeyahay xaruntiina halkee ku taalla yiri. xaruntiina waxay ku taallaa Muqdisho, degmada Hodan Taleex. degmada Hodan Taleex, dhabarka dambe maqaayad Fatix Taleex ayay ku taallaa xarunteena. waa iskool lagu barto luqadda Turkiga. waa iskoolka keliya ee bixiya luqadda Turkiga magaalada Muqdisho markii la yiraahdo si khaas ah. bil walbana fasal cusub aad heli doonta insha Allah. qofkan kale su-aal kale ayuu ina soo weydiiyey. wuxuu leeyahay dadka hadda ku jiro live-ka daawan hadday u baahdaan su-aal way soo weydiin karaan, comment ahaan ha igu soo qoraan. wuxuu soo yiri goormaa fasal cusub jiraan? fasal cusub waxay jiraan bisha soo socota insha Allah. bisha May fasal cusub aa jira haddii uu alla idmo. fasaladaas oo ah barashada luqadda Turkiga si toos ah weliba. ardaydeeda kale oo ayagana su-aalo kale isoo weydiiyey. haddii aan ka baxo live-kan wuxuu ku anfici doonaa su-aal walba oo la isoo weydiiyey oo toos la iisoo weydiiyey in adigana aad ka faa'iideysan doonto insha Allah. su-aasha kale ee fariin qoraalka la igu soo diray waxaa la yiri online halkee lagu qaataa? online-ka waxaa lagu qaataa WhatsApp group ayaa lagu qaataa. cashiro live ah oo iyo cashiro duuban intaba waa diyaar, waad heleysaan insha Allah.
su-aalaha kale ayaan fiirin doonaa. Qofkan wuxuu yidhi gobollada dalka ma ku tala jirtaan in aad timaadaan? aad u weyn gobollada dalka inaynu imaano waynu ku tala jirnaa, boqolkiiba boqol waynu rajeynaynaa inaan imaano gobollada dalka, gaar ahaan Hargeysa ayaa inta badan ardayda ay naga soo codsadaan inaan xarun cusub aan ka furno. Som Turkey School waaya. sidoo kale su-aalaha kale ayaan idin sii wadi doonaa. Qofkan wuxuu leeyahay su-aasha hore ayaan uga jawaabay halkii ay ku taal xarunta waa Muqdisho, degmada Hontaleex, dhabarka dambe Fatxi. qof kale su-aal ina soo weydiiyey waxa uu leeyahay shahaadada aad bixisaan waa noocma? shahaadada aan bixino waa dibloma ayaynu ku bixinaa 6 bilood. su-aasha kale, qof dhamaystir u baahan ma u dhamaystirtaan? haa walaal, haddii aad u baahan tahay dhamaystir keliya waxaa gelaysa imtixaanaadkaas ayaana lagu kala ogaan doonaa heerka aad tahay iyo weliba sida aad luqadda aad u taqaano iyo weliba halka aad u qalanto. imtixaankaas ayaa lagu kala xaqiijin doonaa. su-aasha kale aan u gudubno oo uu ina soo weydiiyey qofkan, haddii u baahato inaad su-aal ina soo weydiiso comment ahaan ardayda sida hadda live-ka ahaan noogu soo weydiiyaano, haddii kale lambarkan fariinta noogu soo diraan 05 70 70 57. su-aalaha toos ayayna uga jawaabi doonaa insha Allah. su-aasha kale ee nala soo weydiiyey waxaa waaye, su-aashan hore ayaan uga jawaabay. qofkan wuxuu yidhi iskoolka goormaa la furay? waa su-aal muhiim ah. iskoolka waxaa la furay 2018 kadib markii baahi ay ka timid ardayda barata luqadda Turkiga ay joogto dalka Turkiga, kuwaas oo codsaday in intay joogaan dalkooda hooyo luqaddii ay bartaan. maxaa yeelay qofka kolkii uu xagga tago waxaa ku adkaanaysa inuu fahmo luqaddii. su-aasha kale aan u gudubno, jaamacadda Turkiga xiriir ma la leedihiin? admission ayaynu hadda ka soo saarnaaba jaamacadahaas. admissionadaas oo runtii aad iyo aad u anfici doona. barnaamijka naloo sheergareeyo insha Allah, naloo sheergareeyo si dad badan ay u daawadaan, guruubyadana naloogu sheergareeyo. su-aalaha maanta way inoo furan yihiin hadda kabacdina khamiis walbo mise jimco walbo su-aalaha toos ayay inoo ahaan doonaan insha Allah. sheer hayna loogu dadaalo insha Allah. marka jaamacadaha Turkiga hadda waxaynu kasoo saarnaa admissiono free ah oo ardaydeena ay ka faa'iideysan doonaan insha Allah, kuwaas oo ay ka caawin doonto Som Turkey School. su-aalaha fariimaha aad iyo aad ay ugu badan yihiin. fariimahan inta badan waxaa u badan halkii xarunta ku taallaa, bishii waa meeqa haahey luqadda Turkiga markay noqoto fasalo toos ah usoo xayeyso bishii waa $13. buugaagta iyo diiwaanka haa walaal sheer inoo dheh. xarunta waa Muqdisho, degmada bishii waa $13. fasalo toos ayaa helaysa iyo kuwa online ah. qaybta online-ka waa iska raqiis ayada, way ka qiimo mayarta midaas. buugaagta iyo diiwaangelinta waa free, macluumaadka waa Soomaali. koorsada 6 bilood oo xiriir ah ayay socon doontaa insha Allah. su-aalaha ayaynu ka jawaabi doonaa. qofkan su-aal ayuu ina soo weydiiyey, laakiin su-aal khuseysa ma aha, ayaan ka gudbi doonaa. qofkaas magacaygu waa Mohamed Xasan, joogo dalka Turkiga. buugga Turkiga iyo Soomaaliga ma idinka heli karaa? sidees igu soo gaari karaa? waxaynu diyaarinay buug Turki Soomaali ah, taas oo aan ugu talagalnay in ardayga uu take away ka dhigto. waxaa dhacaysa inta badan in arday hal isbuuc haystaan in intay xarunta yimaadaan oo ay dhahaan waxaan u baahannahay luqadda Turkiga. hal isbuuc marka luqaddii Turkiga ma lagu baran karo somaha. waxaynu sameynaa fursadaas si uu uga faa'iideysto. waxaynu siinaa buug Turki iyo Soomaali ah oo bilaaw ilaa iyo heerka uu markaas joogo uu ku qaadan doono. buuggaas haddii aad u baahan tahay commentiga
in ula soo wadaag, toos ayaynu kula wadaagi doonaa. Qofkan su-aal kale ayuu ina soo weydiiyey, wuxuu yiri ilaa iyo levelkeed luqadda dhigtaan? walaal waxaynu dhignaa levelka ugu sarreeyo ee luqadda Turkiga ayaynu ardayga gaarsiinaa, heer beri markii uu u baahdo dalka Turkiga toos uu uga xaadiri karo insha Allah. Ardayda dhigato Digfaar oo kaleento Som Turki School ee magaalada Muqdisho way ku faa'iidaan 100% maxaa yeelay luqadda ayay halkaas kaga bartaan ayagoo cashiradii ay soo qaateen oo kaleento ku helay ayagoo af Soomaali ahaan loo sharaxay. waynu ka socon doonaa su-aashaas. qofkan su-aal ayuu ina soo weydiiyey, waxa uu leeyahay macallimiinta, haddana macallimiintu qofkan uu soo celiyey, xaaladaada ka waran ayuu qofkan soo qoray. Turki ku dheh aad weyn walaal, waxaa waayo nasilsinis waayo walaal. Mohamed Xasan Aabinho waynu ku salaamayna walaal. su-aal haddii aad qabtana ina soo weydiiye insha Allah. qofkan su-aal ayuu ina soo weydiiyey, waxa uu yidhi iskoolka halkuu ku yaalla? iskoolka halkuu ku yaallo waan sheegnay walaal, waa Muqdisho degmada Hodan Taleex, dhabarka dambe Fatix waayo walaal. aad iyo aad u mahadsantihiin. qofkan wuxuu yidhi cashiro live ah ma jiraan oo macallinku cashirada sharxda insha Allah. hadda waxaan jooga xafiiska waxaa ku dhagan sabuuradaas oo aan idin kugu qaban doono cashiro live aan idin soo gelin doono walaal. qaabtaasa sabuurada insha Allah. su-aal kale halkaan imaatay, wuxuu leeyahay YouTube channel ma leedihiin? waa su-aal muhiim walaal. Som Turki School wuxuu leeyahay YouTube channel oo ku qoran tahay Som Turki School. haddii u baahan tahay halkaas ayada cashirada kuwa basiga ah, kuwa garaamarka ah iyo kuwa aadan ama aadka u muhiimka halkaas ayay ku jiraan insha Allah. qof kale ayaa su-aal soo weydiiyey, sheerka walaal, share insha Allah naloo sameeyo. sheerka waxay naga caawin doonta insha Allah in ardayda badan ay gaarto. qofkan wuxuu leeyahay ardayda ka qalin jebinaysa sanadkan foomfoorada maxaa loo hayaa fursadda? dalka Turkiga hadda waxa uu noqday dalka ugu badan ee ardayda ay u aadaan jaamacadaha Turkiga. hadda inta badan waxaa loo aadaa dalka jaamacadaha, ha ahaado bachelor ama ha ahaado degree, intaba hadda waxaa loo aadaa dalka Turkiga. awal ardaydu waxay aadi jireen Malaysia, waxay aadi jireen Qatar, laakiin hadda waxay aadaan dalka Turkiga. sababaha dalka Turkiga ay la aadaan waxaa waayo waxaa ku badan Soomaalida, waana dalka xiriir diblomaasi iyo mid dhaqaale, mid ganacsi iyo mid walaaltinimo aynu leenahay inta walaal. su-aalaha waynu soo gabagabayn doonaa insha Allah. cashirada ayagoo live halkan haynala soo geliyo qofkan walaal, waynu soo gelin doonaa cashirada qaarna waynu soo gelinaa. hase yeeshee markay noqoto cashiro waxaa fiican in YouTube channel aad kasoo daawato siday u kala horeeyaan. qofkan wuxuu isoo yidhi cashirada buwaagta oo duuban ha inaloo soo geliyo. okay walaal, cashirada buwaagta duuban waynu soo gelin doonaa insha Allah, weliba si wanaagsan aynu usoo gelin doonaa. live-kan waynu soo gabagabayn doonaa. live-ka wuxuu ahay qorshaha 15 daqiiqo, waa gabagabo waayo walaal. hadday u baahan tahay barashada afka Turkiga xaruntan ay imaanaysaa. xaruntan waa Muqdisho degmada Hodan Taleex, dhabarka dambe ee maqaayad Fatix. halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. live-keena waa Ustaad Mustaf oo kula socodsiinayay live-ka iyo weliba cashiradeena. hadda wixii ka dambeeyana sidaan ayaynu idinkula sheekaysan doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.